maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo maanta la hadlay telefishinka Home Cable isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shaaciyay in uu raali gelin buuxda ka bixinayo hadallo ama dhaliil uu hore ugu soo jeediyay duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin waxana uu sheegay inay ka heshiyeen dhamaanba waxyaabihii keenay khilaafka marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan khaldamin hadalladii xanafta lahaa ee la diiday dadku ay diideen inta badan xaqiiqa ka soconayay in halkan dhamaan ummadda reer Soomaaliland cidii hadalkaas dhageysatay ee uu dhibay inaan maartay ka siiyo raali gelin Cabdishakuur oo in aanu muddo badan soo wada shaqeynay laba maayir isku dhownahayn ehel iyo marka wax badan in naga dhaxeeyaan waxyaabihii maartay xaqiiqa kaga yimina ayadana aan ka raali geliyo way Soomaalida waxay ku mahmaada ruux dhaawac geystay oo dheeyaa maliid Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi hadaladiisa ay kamid ahayd oo dhaayiisi saaka waagu markuu bariyay waxa aan isugu nimi dhamaantayo inteeda halkan fadhida iyo in kale oo naga maqanba sida wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xigeenka iyo Maxamed Cali Daalin oo marna ah mas'uulka gobolada iyo degmooyinka oo qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha marna chief caaqilkii ah iyo inteeda halkan fadhida wasiirka awalan waa mahadsan yahay inuu hawsha soo gabagabeeyay xildhibaanada iyo sida xildhibaan bidhi iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco iyo raggii ka soo shaqeeyay arrinkaas meeradaha Cabdiraxmaan Sultalko ugu horeeyayna ma hadba halkan ugu celinay waxaan u sheegaynaa ummadda reer Soomaaliland horta arrinkaas saaka inuu xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha uu ku soo gabagaboobay halkaana ku dhamaaday aniguna ka Maxamed ahaan wixii dib xaggayga iga timi ee xanaf ahayd ee ku socotay Mayor Cabdishakuur ama ku socotay maartay qoyskiisa iyo ku socotay iyo maartay cidii ku dhaweyd ama reer Soomaaliland ba ay markaa diideen waxaan mar labaad ku celinayaa in raali gelin buuxda aan ka bixinayo hadalkan waan ku heshiinay Cabdishakuur waanu iska laab xaadanay warkaasina sidaas uu ku dhamaaday anagoo wada soconna oo sideedii hore abaan ka soo baxnay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka xafiiskiisa marka qofku bini aadamku waa gafku waa ka dhacay laakiin nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wa khayrul khadaa'in atawabun bud ilaahay waxaan weydiisanaynaa cafis bacda dalika cid allaale cidii hadalkaas aanan xaq ugu lahayn ee dhibsatayna ayagana waxaan leenahay raali gelin kadib inay iyaguna cafis bixiyaan ugu horeeyo maayirka ugu horeeyo anigana xaggayga wixii laygu soo tuuray ama maayirka haygaga yimaadeen ama cid kale oo maaragtay dadweynaha kamid ah ama xildhibaanada kamid ah ha ahaadee maadaama anigana la cafiyay aniguna inaan cafiyaa oo ummadii waxna dhex mareen maayirka kaliya ma ahayn dad badan baa waxna dhex mareen inaan dadka iska wada cafiyo nabadgelyo ku wada noolaana oo nabadgelyo maartay mas'uulnimo ku wada shaqeyna waa shay muhiim ah aad iyo aad baan uga xumahay wixii dhacay laakiin الرجوع إلى الحق فضيلة أما الاعتراف بذنب فضيلة إن وحياد مارتي جيستي مارتي دي اعترافتها رجعنا ماذا كم تاعي هذا بندي سلام يا هون كيبل تي في حسن قليد gudoomiyaha gobolka Maroodi Jaamac Axmed oo isna hadlay waxa uu sheegay inuu mahad celinayo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhexdhexaadinta labada maayir aad baan idinku mahadnaqayaa Home Cable TV runtii kelmadda aanu doonayno inaan halkan ka cadayno maanta waxa weeyaan hawshii yareed ee dhex martay labada maayir maayirka magaalada Burco iyo maayirka magaalada Berbera oo runtii waxoogaa hadalla ah oo warbaahinta la isu mariyay ay dhex mareen kuwaasoo runtii dad badan oo reer Soomaaliland dhagahooda ku dhacay
waxaan uga mahadnaqayaa arrintaa xildhibaanadii iska xilqaamay arrintaa ee ka soo shaqeeyey runtii ilaa maalintiiba oo xildhibaan bidhi iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaano kale oo runtii degmooyinka Hargeysa iyo Burco iyo Berberaba ka mid ah iyo labada maayir waxaan idin cadaynaynaa maanta runtii labadii maayir inaan isu keenay oo heshiisiinay oo ay iska gacan qaadeen oo laabta is saareen oo runtii ay isaga garaabeen hadaladii dhex maray iyo waxyaabihii runtii xanafta lahaa waliba uu raaligelin bixiyey maayirka Burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan oo dhinacayga fadhiya oo runtii hadaladii xanafta lahaa ee runtii intooda badan dadka aad dhagahooda u galay ay dhinaciisa ka yimaadeen waan uga mahadnaqayaa garawshiyaha uu bixiyey iyo runtii sida wanaagsan ee ay isu saaxiibkiisii kale ama maayirkiisii kale ay isu laab xaadheen waxaan waliba halkan runtii raaligelin aan uga soo jeedinayaa qoyska cabdishakuur cidin oo hadalla ay ka gaadheen maayirka oo runtii cabdishakuur cidin oo aniga iyo maayir maxamed muraadba aanu awownahay oo runtii qoys wanaagsan oo runtii dhaliya aanu nahay ka soo jeeda iyagana runtii waanu raaligelinaynaa hadallada runtii labada maayir ay isku dhexdooda ka socday oo iyagana gaadhayna waanu ka raaligelinaynaa wasiirka arrimaha gudaha ayaan u mahadnaqayaa isagana oo arrintaa ka shaqeeyey oo xafiiskiisa maanta kulanka uu ka dhacay oo labada maayirba u yeedhay ayaan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xasan Suleybaan Haruun Xasan Galayd wararka Home Cable magaalada Hargeysa.